in magac beereed in ay tiraahdo haday waxa si ciwaayaan deegaankayga laga codayn maayo raga tartamayo aw naftaada naanida hajabin hadaa dalka soo socotay jabiso maxaad xukun waxa ka distoorkeedu wuxuu reebaya oo ka xaaraansan in xisbiga keligii gobol gaar ah ka soo jeedo kuma jirto shuruucda doorashada xisbigu waa inuu qaran ku leeyahay ninka madaxda waa xisbigu waa inuu qaran koo dhan codka doonaya oo isweey waxaan la qaadan karaynin waxyaalaha qaarkood ee shirarka beelaha ka soo baxay madax dhaqameedku te waxay u ogeyn iyagoo nabadda iyo isku hayn dadka iyo labadii khilaaftama iyo hadday siyaasad mar iyagu dhex gala laakiin waa argagax bay leedahay qarankana waa ku gab sharciyana waa xaaraan madax dhaqameedkana waa soo dhigaysaa in magac beereed in ay tiraahdo haday waxa si ciwaayaan deegaankayga laga codayn maayo micnaheedu waxa weeyaan ninka deegaanka doorashada diidaya kuwa kale soo ugu hawlgalaya soo maaha deegaan iyo qolqolaha loo kala wado aad baan uga xumahay in madax dhaqameed iyo waayeel shirin ay waxaas oo kale ka soo baxaan sharcina maaha waxaan ku waagan lahaa madax dhaqameedka hawsha weyn haysaan ee dhaxalka leeyihiin siiyey ee lagu ixtiraamo dee ku ekaada oo waxay daan garanayn hadar jiirina siyaasiyiintu way laacdamayaan ma coloobaan ha kuwa go-in intaana waxaan ka yidhi doorashooyinka haddii alla yidhaahdo doorashooyinku way noo qabsoomayaan sida ay u dhigaan guddida doorashooyinku ayay isugu xigayaan insha allahu dhowaan waxay si nabada usoo saari doonaa intii kasoo baxday tartankii ururada maxtaabasha ahayd xisbiyada iyo saddexda xisbi qaranba way tartamayaan waana sharci ninka ka leexanayaana haddii aanu doorasho doonina iska joogo laakiin qasab sharci uma qalin karo qaranka nin kursi doonaya kama adkaan karo marka sida loo wado qaranka nin kursi doonaya ma afduuli karo ka jooga ee ka mid ahay iyo ka soo socda si sharciya oo barya ah oo dalka u sheegayo xuduud mooyaane sidaan doonaya haddii la weeyo wadcasa laga aqbali maayo madax dhaqameedkii arrintaa gooyana bardib ha u fakaraan xaggay geeyeen kuwa ka mida tartamaya deegaankooda taasaan ku dhaafay waxaan doonaya halkan inaan qodobka xuso taariikhda badan la sheegay oo ugu dambaysa maanta waxaa nala jooga cabdiraxmaan cali faarax oo xanuunsanaya ilaahay caafimaadkiisa ugu ducaynayna laakiin wuxuu oga buluuska markii la asaasiyay intii aynu ka soo noqonnay midoobe aynu ku khasaaray ilaa buluuskanu taariikh u leeyahay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii baa la asaasay taana dib baynu eegi doonaa laakiin waxaan ogahay allah u naxariista isaga iyo cigaa oo madaxweyne ku-xigeen isu ahaa hawshii iyo dhibtii ay ka qabteen buluuska markaa la asaasiyay xoogaan baan u ahaa wasiirkii daakhiligaan u ahaa waxaa ka markhaati ahay cabdiraxmaan owaani inuu aada iyo aada nafur u sameeyey isagii madaxweyne cigaalba iyo intii madax ka dambeysaba wixii intaa loo naxariisto wixii bukana caafimaad siiyo inagana dad isjecel oo tartama oo nabadu tartama oo waalida u jeeda ee aan tafraal noqonin baa ilaahay loo jeedaya doorashooyinka nabad ha lagu tartamo